Ma ogtahay inay jiraan magaalooyin ay geeridu kaaga dhowdahay neefta aad qaadanayso? Sanadkan 2026 kuwaani waa shanta meelood ee dunida ugu halista badan, halkaas oo nolosha qofka bini'aadamka qiimaheedu aad u hooseeyo. Kaalinta koowaad magaalada ku jirta xitaa booliisku kuma dhiirin karo inay galaan. Aan ku bilaawno kaalinta shanaad waxaa ku jira magaalada Cape Town, South Africa. Dagaalka burcadda iyo hubka fudud. Waxaan ku bilaabaynaa Cape Town, inkastoo ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan Afrika, haddana waxay qarsataa weji naxdin leh oo ka dhex jira xaafadaha isku raranka ah. Sanadkan 2026 Cape Town waxay u tahay in ka badan 100 kooxood oo burcad ah oo ku dagaalama gacan ku haynta dhulka. Meelaha loo yaqaan Cape Flats waxaa maalin kasta ka dhaca iskahorimaadyo loo adeegsado hubka darandooriga u dhaca. Qofka rayidka ah halkaa wuxuu khatar ugu jiraa inay rasaas hawo gurigiisa ugu timaado. Booliska inta badan waxay u baahdaan taageerada ciidanka qaranka si ay u galaan xaafadahaas. Kaalinta afraad waxaa ku jira magaalada Port-au-Prince oo ku taalo dalka Haiti, maqnaanshaha dowladnimo. Kaalinta afraad waa Port-au-Prince. Magaaladan maanta ma lahan sharci iyo kala dambeyn ka shaqeyso. In ka badan 80% magaalada waxaa gabi ahaan gacanta ku haya isbahaysiga kooxaha burcadka ah. Afduubka dadka wuxuu noqday isha ugu weyn ee dakhliga burcadda, iyagoo dadka la haysto loo geysto dajir naxdin leh si lacag looga helo eheladooda. Sanadkan 2026 isbitaalada iyo dugsiyada badankoodu way xiran yihiin. Magaaladuna waxay u muuqataa meel fowdo badan ka jirto. Magaalada kaalinta saddexaad ku jirta waa Tijuana, Mexico. Marinka dhimashada ee cartelka. Kaalinta saddexaad waa Tijuana. Magaaladan waxay ku taalaa xadka Mareykanka, waana marinka ugu weyn ee lagu tahriibiyo daroogada fentanyl-ka ee caalamka ku faafaysa. Tijuana waxay leedahay mid ka mid ah heerarka dilalka ugu sarreeya dunida, iyadoo celcelis ahaan maalin kasta la dilo 6 ilaa 8 qof. Dagaal ku dhexeeya kooxaha cartelka sida Sinaloa iyo CJNG ayaa magaalada u bedelay goob lagu soo bandhigo awoodda. Meydka dadka la dilay ayaa inta badan la soo daldalaa ama meelaha fagaaraha lagu soo tuuraa si fariin loogu diro kooxaha kale. Magaalada kaalinta labaad ku jirta waa Celaya, Mexico. Baadda iyo qaraxyada. Kaalinta labaad waxaa fadhiya magaalada Celaya. Sanadkan 2026 waxay noqotay meesha ugu khatarta badan ee dunida laga noqday booliis. Burcadda dadka waxay u isticmaalaan nidaam naxdin leh oo loo yaqaan Cobra de Piso. Ganacsi kasta laga bilaabo rootilaha ilaa shirkadaha waaweyn waa inay bixiyaan lacag baad ah. Haddii aad diido goobtaada ganacsiga, waxaa lala beegsan doonaa qaraxyo ama weerar toos ah. Celaya waxay tusaale u tahay sida magaalo oo dhan loogu qabsan karo baqdin iyo naxdin. Magaalada kaalinta koowaad ku jirta waa Caracas, Venezuela. Ugu dambeyn, magaalada ugu khatarta badan adduunka waa Caracas. Burburka dhaqaale ee dalkaas ayaa u bedelay magaaladan meel dadka ay isku ugaarsadaan. Caracas ma laha meel ammaan ah. Xitaa xaafadaha ladan waxaa ka jira dhac hubeysan iyo afduub degdeg ah. Habeenkii magaaladu waxay noqotaa meel dhimatay, qof kasta gurigiisa ku xirmaa. Boolisku badan ama baaraan dambiyada, taasoo dilaaga siinaysa kalsooni oo ku dhex soco dadka. Caracas waa meesha kaliya aad dhimin karto haddii lagu arko taleefanka gacanta iyo kaba qaali ah. Nabadda waa furaha nolosha. Adiga ma jirtaa magaalo aad is leedahay in kuwaani ay ka khatar badan tahay? Fadlan noogu reeb ra'yigaaga qaybta faallada. Akoonka subscribe video like saar noona sii share garay mahadsanid.